السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا ونحسن دعوة الميل كستو أجوكتان كسر وادا وراركي قدام بيجيجا سوماليا قضبض عن عاو إذين هينا وحكم ذا إذا كابش عيسى أو توس هوب يجادي دجال جورد وجهله بيش وجادين دكتور دولة ديجان كسومالي ذا xiisadii u dhaxaysay beelaha Samaroon iyo Ciise oo waji kala yeelatay iyo faahfaahinta wararkii ugu dambeeyay ayaan ku soo gudbin doonaa waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa taliyaha militariga Soomaaliland Nimcaan Gaxnuug oo loo diiday inuu booqdo xirooyinka ciidan oo ay ku sugan yihiin ciidanka beesha Ciise ugaaska guud ee beesha Ciise oo sheegay in Nimcaan uusan tagi karin xirooyinka ciidan iyana waxaan ku soo gudbin doonaa dhacdo naadir ah oo ka dhacday meelo kamid ah gobolka Salal waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa Puntland oo ugu dambeyn go'aansatay inay duulaan weyn ku qaado ciidanka waqooyi bari ee ku sugan gobolka Sanaaga qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haddii markii kuugu horeysay ku soo biiri daraja media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno habeen wanaagsan daawade sharaf iyo karaamo muuqaalkan inoo la garee ugu dambeyn beesha faca weyn ee Ciise ayaa hub iyo gaadiid dagaal waxa ay toddobaadka soo aadan ka helaysaa beesha ogaadeen ee degta dawlad deegaanka Soomaalida xiisadii u dhaxaysay Ciise iyo Samaroon oo waji kala yeelatay ogaadeen oo si toos ah ula saftay beesha Ciise suldaanka guud ee beesha Samaroon oo ama kaag iyo la yaab arintan ay ku noqotay iyo faahfaahin macluumaad ku saabsan tirada hubka gaadiidka dagaal xilliga la wareejinayo iyo xog dhameystiran bilow ilaa dhamaad ayaan ku hayaa daawade sidaad ogtihiin waxaa gobolka awdal ka taagan xiisad culus oo u dhaxaysa beelaha oodwadaaga ah walaalaha ah ee Ciise iyo Samaroon Ciisaha iyo Samaroonku dhulkaas waa ay wada degaan xiisadooduna muddo ayay soo taagneed laakiin hadda xiisadu waxaan moodaa inay faraha ka baxday oo awdal la iskala talaabay la islana tagi doono meel ka baxsan awdal haddii xaaladda aan si degdeg ah loo qaboojin waxaan helay xog hoose iyo wada hadal telefoon oo dhexmaray ugaaska guud ee beesha Ciise iyo mid kamid ah salaadiinta faca weyn ee beesha ogaadeen kuwaas oo telefoonkoodu ama wada hadalkoodu uu ku saabsanaa in beesha Ciise ay hub ka hesho beesha ogaadeenku haddii ay markan taageeraan beesha Ciise sheekadu faraha ayay ka baxday oo waxba lagama qaban karo sababtoo ah xuduuda dawlad deegaanka iyo sidoo kale gobolka awdal ogaadeenku jigjiga iyo deegaanadaasi degan waxayna haystaan hub fara badan oo waliba Itoobiya ay gacanta u gelisay inay shuraak ka noqdaan Ciisaha iyo ogaadeen waxay niyad jab ku tahay waxay qalbi jab ku tahay waxay bahdil ku tahay beesha Samaroon meel ilaa ay ku soo dhacaysa ugu dambeyntiina waxaan arki doonaa suldaanka guud ee beesha Samaroon oo gacanta lagu soo dhigay ragga la yiraahdo Ciisaha odayaashooda dhaqankooda dhalinyaradooda siyaasiyiintooda ciidankooda cuqaashooda ugaasyadooda nabadoonadooda dhammaan waa rag aqli miiran ah waxay rabaan in dadka deriska la ah tusaale ahaan beesha ogaadeen oo kale beesha reesha Isxaaq oo kale inay galaangal ku yeeshaan oo beelaha kalena ay xudxudasho sameeyaan shukaansadaan kadibna xaggooda ay soo xigsadaan waligaana haddii aad dagaal ku jirtid istiraatiijiyada dagaalku bilow ilaa dhamaad waxay micno iyo dhadhan yeelanaysaa markii aad gacanta ku haysid dadka deriskaaga ah tusaale ahaan Soomaaliya soo qaadanayna waxa deris la ah Djibouti waxa deris la ah Kenya waxa deris la ah Ethiopia haddii intaas oo gobol ay isku hesho ama gobolada ay isku hesho Soomaaliya dabcan cadowgooda way ka adkaan karaan laakiin haddii goboladaas ama dawladahaas aad gacanta ku heen waxba ma haysid hadda beesha ogaadeen waxa la leeyahay mar hore ayay ballanqaad sameeyeen laakiin ballanqaadka waxay ahaayeen gaadiidka iyo tirada hubka la wareejinayo in xogaa la isku khilaafay ugu dambeynna boqol gaadiidka dagaalka ah iyo askartooda hubeysan in beesha ogaadeen ay ku wareejiso beesha la yiraahdo Ciisaha taas oo dabcan qalbi jab iyo dhabar jab ku noqonaysa beesha la yiraahdo Samaroonka geelna uma maqna maxay maamada xamaheed cidna uma maqna ceelna uma qodna sababtoo ah hadda iskaashiga dhexmaray ogaadeen iyo sidoo kale beesha Ciise dabcan waa mid halistiisu wata in beesha Ciise ay hub ka hesho ogaadeen beesha Ciise hub ay ka hesho Djibouti wax ma yaalaan meesha martaas ku sheegno wax ma yaalaan marka Samaroonka iyaga waxa u furan hal wado oo ah in ay qaataan waxa la yiraahdo wada hadal
inay wada hadal sheekada ku abaaraan wada hadal ku biloobaan wada hadal ku dhameeyaan taas ayaa waxay noqonaysaa micnaha iyo dhadhanka haddii ay rabaan in samaroonku ay yacni xaaladda ay dejiyaan xeerkii buugga ciise xoog iyo xeeladba waa la soo bandhigayaa muuqaalkaygan meenta meel ku qorta caawo jimca baan idila hadlayaa haddii ilaahay nafta inoo daayo idinkuna aan nooshiin aniguna aan noolahay meel ku qorta xeerka buugga ciise waa la soo bandhigayaa markay noqotaba waa la soo bandhigayaa weliba si xarago iyo sharaf leh hadda goor mid ka mid ah garaadada maamulka waqooyi bari waxaa laga hayaa adeer anagu dagaal hadda maana gelin waanu xaraga dagaalamaynaa xeerka buugga ciise ugu dambeyn isagana waxaa la soo bandhigi doonaa iyaga oo xaraga si qurux badan loo soo bandhigay isla markaana si xaraga leh bannaanka loo keenay oo ay weliba kan iyo jabsan yihiin kana ku xun yihiin beesha samaroon la yiraahdo anu marka waxaan qabaa ninkan hogaamiya beesha samaroon ee suldaanka ah ee habeen dhaweyd madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland la kulmay ninka intuu caqligiisa iyo garaadkiisa dib u celiyo ha ka shaqeeyo in beesha samaroon wada dhalasho iyo walaaltinimo xaaladda lagu dhameeyo laakiin haddii aysan taasi dhicin sheekaru faraha ka bixi doontaa waxaana la arki doonaa wax ka weyn waxa hadda la filan karo oo ka dhaca gobolka taasi oo aysan cidna dan ugu jirin qodobkeena kalena wuxuu noqonayaa taliyaha militariga Soomaaliland Nimcaan Gaxnuug ayaa la soo warinayaa in lagu hor istaagay inuu booqdo xirooyin ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidanka beesha ciise ma aqaan waxa Nimcaan Gaxnuug ka jira saldhigyada ciidanka beesha ciise miyuu basaasi rabay ma xogtu rabay inuu ogaado yacni anigu aad baan ugu wareeray baaritaan aan sameeyana ugu dambeyn waxaan ogaaday in laga hor istaagay oo weliba ciidamo ku dhiiradeen inay dhaheen taliyaha nafsadaada haddaa rabtid halkan ka bax halkan iskaga tag wuxuu ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay ninkan odayga ah tuulada Habaas iyo tuulada Heemaal oo uu kala dhexgelaya dabcan maleeshiyaadkii halkaa ku dagaalamay ee Samaroon iyo Ciise hadda xogtu waxay tilmaamaysaa inay xaaladdu sidaan si ka duwan ay tahay oo laga cabsi qabo in xataa uu ku sigta xataa taliyaha militariga Soomaaliland Nimcaan Gaxnuug in loo gacan qaado ugu dambeyntiina uu dib ugu laabtay deegaanadii uu ka yimid isagoo niyad jabsan isla markaana ka xun in uu soo arki waayay qaabka iyo sida ay u howlgalaan ciidanka beesha Ciise dabcan ugaaska guud ee beesha Ciise ayaa la sheegay inuu warkan helay kadibna uu la hadlay taliyaha ugu sareeya militariga beesha Ciise uuna ku amray inuu sargaalkan iyo saraakiisha la socota aysan xataa ka soo agdhawaan karin magaalada ku xareereysan ama deegaanada ku xareereysan miyiga fog ee gobolka taasoo ay dad badan aaminsan yihiin haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto inay wax badan isbedeli doonaan khubarada arrimaha la socota ayaa aaminsan haddii jawigu sidan uu ku sii socdo isla markaana xaaladdu sidan ay sii noqoto inay wax badan khaldami doonaan lana arki doono isku dhacyo waaweyn oo dhanka ciidamada ah oo ka soo ifbaxay deegaano ku yaala xuduudda Nimcaan Gaxnuug taliyaha militariga Soomaaliland horay ayay beesha facaweyn Ciise uga diiday wax wada hadal ah horena wuxuu taliyaha militariga Nimcaan Gaxnuug dacweeyay ugaaska guud ee beesha Ciise wuxuuna ku dacweeyay Cabdiraxmaan Cirro isagoo u sheegay inuu markuu u tago uu yaso oo uusan ixtiraamin soo dhaweynin halka suldaanka guud ee beesha Samaroon uu soo dhaweeyo taliyaha militariga Soomaaliland ixtiraamo la sheekaysto taasoo dabcan loo arko in xataa beesha Ciise aysanba ku qanacsaneen habka iyo dhaqanka uu wax u wado Nimcaan Gaxnuug qodobkeena ugu dambeeyana Puntland ayaa ugu dambeyn waxay go'aansatay in ay duulaan ku qaado ciidanka waqooyi bari warkaygu waa war xaqiiqo ah oo aan soo ogaaday 100% saraakiil aan la hadlay qaarkood ayaa waxay ii sheegeen in militariga maamulka waqooyi bari lagu amray inay heegan sar galaan waxaana laga cabsi qabaa haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto in jawigu isbedeli doono xaaladuna ay faraha ka bixi doonto laba sargaal oo aan la hadlay ayaa waxay ii sheegeen in ay jiraan aragtiyo la xiriira in ciidanka Puntland ay weerari karaan saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidanka waqooyi bari tan haddii ay dhacdana dagaalka wuxuu noqon doonaa mid saddex geesood oo u dhaxeeya Soomaaliland Puntland oo hadda isku dhinaca iyo waqooyi bari oo iyana dhinaca taasi oo dad badan aaminsan yihiin in libintu mar walba ay u hari doonto ninkii gurigiisa kale oo mabdi'iyan wax macquul ah u dagaalamaya taliyaha militariga maamulka waqooyi bari ayaa la soo warinaya in laascano looga yeeray dabcan waxaana la siin doonaa amar guud oo ah inuu isdifaaco
oo uusan gacmaha laaban haddii ciidanka Puntland ay duulaan ku soo qaadaan gudaha saaxiibayaal wararkeen intaas ay ku dhan yihiin haddii taa markii kugu horeysay ku soo biri daraja media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacanay soo dhawow daawade habeen wanaagsan jimco wanaagsan